ninkan waxa lagu magacaabaa Bradley Marongo. Marka aad socoto wadooyinka dalka Kenya ma aha mid ka qarsoomaya muuqiisa. Waxay indhaha ku qasbanaan doonaan inay arkaan jooggiisa dheer xataa haddii uu ka fog yahay. 27 jirkan waa ninka ugu dheer dalka Kenya, waxa uuna abtirsiimo ahaan ka soo jeedaa degmada Vihiga ee dalka Kenya. Haddaba ma ogtahay in ninkan uu dhawaan guursaday gabar Soomaali ah? Sheekadiisa iyo rikoorka dhererkiisa ee dunida ka yaabiyay ayaan warbixintan kugula wadaagi doonaa. Muuqaalkana sii faafi. Bradley Marongo waa nin u dhashay dalka Kenya, balse waxa uu sameeyay taariikh cusub oo aan horey loo gaarin hortiis. Waxa uu noqday ninkii ugu dheeraa dalka Kenya taariikhda. Dhererkiisu waxa uu gaarayaa ilaa 8 feet oo dherer ah, ama si kale haddii aan kugu sheego waxa uu dhan yahay 2 mitir iyo 43 sentimitir. Qiyaastii waa 2 qof oo la isdul saaray dherer la eg oo kale. Ninkan waxa uu noqonayaa ruuxii ugu dheeraa xataa geeska Afrika oo dhan. Waxay dad badan xasuusan doonaan Xuseen Bisad, ninkii Soomaaliga ahaa ee wacdaraha ka dhigay dunida, kaasi oo mar noqday ninkii labaad ee dunida ugu dheeraa. Hase yeeshee Bradley Marongo oo ah ninkan Kenyaanka ah ayaa ka dheereeyay oo jabiyay rikoorkii Xuseen Bisad. Ninkan u dhashay dalka Kenya, guud ahaan Kenya waxa uu ka waayay kaba la eg lugtiisa baaxadda leh aawadeed. Xataa dharka uu xirto waa kuwa si toos ah loogu tolay isaga, laakiin sida uu u weyn yahay uma da'weyna. Waana nin dhalinyaro ah oo 27 jir ah. Taasi ayaa ah mid ka dhigi doonta nin taariikhda dunida bedela, maxaa yeelay waxa uu weli ku jiraa heerkii korinshaha oo uu ku heli karo dherer kale iyo weynin hor leh. Arinta xiisaha leh ee Soomaali badan soo jiidatay waxa ay tahay in ninkan uu dhawaan guursaday gabar Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Aamina Cabdi. Bradley Marongo ayaa la rumaysan yahay in uu qaatay diinta Islaamka kadib markii uu guursaday gabadha Soomaaliyeed ee Aamina Cabdi. Waa sida ay qoreen warbaahinta qaar ee dalka Kenya, inkastoo aanan la hubin. Si kastaba ha ahaatee, ninkan dhalinyarada ah ayaa la aaminsan yahay inuu taariikh ka dhigi doono dunida sanadaha soo aadan, maadaama uu gaaray dherer intaas la eg isaga oo da'diisu ay yar tahay. Waxaa la filayaa in lagu qori doono buugga caanka ah ee Guinness World Record, kaasi oo lagu kaydiyo taariikhaha aanan horey loo arag. Ma laga yaabaa inuu noqdo ninka ugu dheer dunida? Bal adigu aragtidaada hoos nagula wadaag. Muuqaalkana laag saar oo sii share gare.